aan lala barbardhigi karin magaalo kale. waxa hubantiya haddii aad magaalada Hargeysa eegto in aad arki karto dariiqyadu sida ay isku bedeleen taasi oo ay sabab u tahay isbedelka aadka u laxaadka leh ee runtii ku soo yimid magaalada Hargeysa. haddaba daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa waraysiyo kooban oo ku saabsan ganacsiyada kala gedisan ee magaalada Hargeysa kuwaasi oo ugu talagalay in aad ka dhugataan waxyaabaha ka socda magaalada Hargeysa sida muuqaaladan aad aragtaan oo ah kuwa runtii muujinaya waxyaabaha runta ay ka jira magaalada sida dadka iyagu u xidhiman yihiin ee magaalada jooga iyo kuwa waalan ama kuwa tuugta ee magaalada booba. haddaba magaalada Hargeysa oo runtii magaalo muuqaaladeedu ay kala duwan yihiin waxaanu rajaynaynaa bal in aad si weyn uga bogataan muuqaaladan idinku soo maqan. horta iibka jaadka iyo siyaabaha magaalada soo iibsadaan. iibka jaadka nimanka qaadka imka loo keenaa wayna fuulaan. adigu miyaad ku cusubtay jaadka iibkiisa? ma jaadka waa iibin jiray. kala ka waran sida wax loo iibiyo iyo waxa soo galay niman cusub qaadka fuulaya. adiga kuma weydiin dadka cusub waxaan ku weydiiyay qaabka wax loo iibiso. qaadkan iibiyo waa fujiska. waay marka ka waran iibkiisa imka aad buu noogu qaaliyaa annaga. imisaad siisaan jaadka? qaadka waxaan siiyaa xabadda way 8. waay waxaynu magaalada Hargeysa eegi doonaa dhowr meelood oo kala duwan sida xeradda jaadka anigoo waraysan doona mas'uuliyiin ka mid ah jaadka ee dadweynaha soo ururay wad maasantiin Hargeysa. waxa hubantiya in aad ula yaabayso muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa marka aad la dhex socoto kamarada tiyo la kulmayso wajiyeed oo kala duwan kuwaasi oo mid waliba aragti gaar ah ka qabo waraysiyada. haddaba dukaankan oo ninkii haystay wax ka weydiiyay muddadii uu furnaa dukaankana waxa uu ku yaalaa ka soo horjeedka masaajidka ka soo horjeeda Horyatanka kaasi oo ah mid runtii ku yaala meel wanaagsan. waxaanu igu jawaabay su'aalihiisii oo aan su'aalahan weydiiyay kamid ah jawaabihiisii sida tan. meel kale ku yaala halkan waxa ka wadataa ganacsiga noocan oo siisaba meel kale oo ka soo guuray way jirtay meel kale oo ku naalay laakiin se imika halkan muddo waxaan degnay ilaa 6 bilood. ka waran markaa suuq ahaan sida weey suuq aad u wanaagsan wallahi. ma jira markaa dukaan ha kugu dhawo ganacsi noocan kale way jiraan ha kaliya way jiraan macdar way waagayaan markaa taasi ma u dhimaysaa dukaankaaga? waxa ay suuqo ka sii wanaagsanaana mooyaane laakiin waxa u dhimaysaa ma jirto. haddaba waxaad ka warantay magaalada Hargeysa suuqan uu ku yaalo oo ah Horyatanka agtiisa waxa la soo dukaano badan aanay ku hoolin oo camiranay si dadku aaminsan yihiin marka maxaad ku dhalan arrinta ayada horta way jirtay bariga hore way jirtay laakiin imika waa laga helayaa macdarada badan waa aad u camiran walaalaha ay iibiya sidan ashaadan aan hayo oo kale. way aad bad ma santay Cabdiraxmaan waxaynu eegi doonaa muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo qaybaha aad arki doontaan oo runtii kuwa aad u qurux badan marka dib loo eego waxyaabihii soo maray magaalada Hargeysa bal waynu eegno. haddaba daawadayaal goobaha aan socodka gaaban ku maray magaalada Hargeysa waxa ka mid ahaa ra'iislahan ayaan oo isaguna aan ka fogeyn halkii loo yaqaanay Horyatan Hotel kaasi oo ninka haysta wax ka weydiiyay sida uu socdo ra'iislu iyo amarnaantiisa maadaama ay tahay meel wanaagsan halka uu ku yaala. waxaad wax ka weydiiyay Xasan oo isagoo ah ninka haystay waxaanu igu jawaabay su'aalihiisii ka mid ahaa oo waraysigay ku bilaabay sida tan oo ah ra'iislaha ninka ka mas'uulka ah Xuseen ayaan su'aal ka weydiinay. Xuseen waxa iga warantaa marka ugu horeysa ra'iislaha halka uu ku yaalo oo ay dad badan aaminsan yihiin in suuq uu leeyahay suuqii hoose oo la isticmaalo inaanu camirnayn bal ka waran meesha. wad nasan Cabdilaahi waxa weeyaan suuqa bartankiisii oo ayuu ka yaala ra'iisku
habeen iyo maalina sidaad u aragtay buu u buuxaa aad iyo aadna ummaddu raalli bay uga tahay ma og tahay in wixii horumar leh inay maaragtay had iyo goor ku soo dhowaadaan dadkuna aad iyo aad buu u badan yahay waayo maalmihii ugu horrayseen meesha furnay dadka oo yar ayaanu furnay maantana meel la kala joogsado ayaa la laayay ma og tahay waxaad iga warantaa muddo inta legay meesha kuu shaqaynaysay iminka berigii dagaaladii laga soo noqday 29kii baan meesha furnay marka ilaa maalinkaa maanta dadku wax soo kordha mooyaane wax dhinmayaa ma jiro maalinta baa la soo kordhaya maalmo dhowtay xoogaa ay dagaalada sokeeyo yar dhacay in yar baanu ka yar maqnayn hase yeeshee markii dambe waa lagu soo noqday waad arkaysaa suuqa iyo heerada meesha magaceedana ayaan baa la yidhaha magacoona aragnay marka adigu maxaad adaba aragtidaad ka qabto maxay tahay ganacsiga noocan ama iyo camirnaanta magaalada waxaan ka qabaa aad iyo aad bay ugu baahan tahay meheradaha caynkaas oo kale ah in had iyo goor la badiyo oo la qurxiyo oo maaragtay lagu soo dhawaado maaragtay waayo ninna magaaladiisa isagoo qurxiyo mooyaan cid kale qurxiyo yurubna cid waxba u qurxin mayso ninba meesha joogo inuu nadaafadana ka shaqeeyo oo had iyo gooraali moogta u dadaalo dadweynaha u jajabnaado ayaan aad iyo aad u maaragtay way xuseen aad baad runtii mahadsan tahay waqtiga aad nasiisayna waad ku mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay way mahadsanid macmacalaha iyo cosmetic store ama qalabada la isku qurxiyo iibiya dukaankan oo iibiyaan dhalinyaro iyagu ah reer Hargeysa isla markaasina suuqa bartamaha magaalada Hargeysa ku iibiya bal aynu eegno waxyaabaha ay nagu soo kordhiyeen camirnaanta dukaanada noocani waa mid iska caadiya baryahan dambe magaalada Hargeysa waxaase hubantiya inaan dad badani aaminsanayn in sidan ay ka muuqato magaalada Hargeysa ama laga heli karo dukaano noocana bal aynu eegno haddaba sidaynu horeba u sheegnay dadka iyagu leh ganacsiyada noocana oo aan kala kulmay sida dukaankan Nagiib iyo kuwii hore aad hore la kulanteenba oo isagu waa ninka ka mas'uulka ah dukaankan ay aragtaan ayaan wax ka weydiin doonaa bal qaabka ay u socdaan ganacsiyada noocana iyo gebi ahaanba suuqa uu ku yaalo sida uu yahay baryahan dambe mukhtaar waxaad nooga warantaa maadaama dukaanku ku yaalo halka loo yaqaano suuqii hore oo ah dabcan u dhow hoteelka ama meesha la yiraahdo Horyatan Hotel nooga waran qaabka uu socdo suuqani iyo dukaanada noocan oo kale qaabku socda waxa weeyaan si wanaagsan u socda dukaanka qablaha si fiican ma xogeyna aabto iska socota cadashada kariimada hada suuqa aad biska wanaagsan marka waxyaabaha diibisaan ma waxyaabaha si weyn loogu baahan yahay mise waa waxyaabo dad go'aan ay iibsadaan may waa caadi ba la iibsadaa dhalinyarta waqtiga la socda waxaan waa la iska iibsadaa marka dukaanada noocan ay kuwa cusub oo waqtigan imika isbedelkan dambe yimid bilaabmay ama soo kuwa hore u jiri jiray hada way jiri jireen laakiin tiimka aad u magaalada ugu badiyeen sida labada ay macaan marka adigu shakhsiyan muddo inta leeg ayaad ganacsiga noocan ku gudaysatay anuu mudooyinka aduu hal sano haddaba mukhtar waxaad ka warantaa muddadaas sanadkaad ku guda jirtay ma waxay ahayd ganacsigaagu mid ku kooban qaabkan oo kale mise waxyaabo kale wuxuu ku koobnaa qaabkan isla markaasina dukaankan unbaad ku iibinaysa suuqan mukhtaar aad baad u mahadsan tahay waxaase ugu dambaystii ku weydiin lahaa aragtidaad ka qabtaa maxay tahay suuqii hore meesha loo yaqaano in haatan joogno aragtidu aad ka qabto adigu shakhsiyan suuqan wallahi suuqan dee aad buu wanaagsan aad baa lagu faraxsan yahay waldi suuqii hore lagu soo noqday oo caadi magaalada oo taadee furan aad baad mahadsan tahay mukhtaar bal haddaba aynu ka sii ambaqaadno halkaasi aynu eegno muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa oo aynu waxyaabo badan arki doonno magaalada Hargeysa meel kastoo aad joogtaba waxaad arkaysaa ganacsiyo kala duwan oo ay dadku ka ganacsanayaan haddaba dahabka oo ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan wax kastoo la iibiyo ayaa waxaad ka helaysaa suuqyada Hargeysa oo ay iibinayaan dumar iyagu aqoon badan u leh noocyada dahabyada iyo qiimayogooda waxaan hooyo ku weydiiyey dahabkan aad iibinaysaa qiimihiisu ma noocyo kala duwan buu leeyahay mise waa mid isku wada mid ah noocyo kala duwan buu leeyahay marka nooca ugu qaalisan magaciisa maxaa la yidhaha 22 ama 21 marka waa miisaanka miya ma waa miisaanna wuu yahay munadna wuu yahay marka dahabkani ma dahab aad ka keentaan wadamo fog baa mise waa kuwo aad soran karto waxa lagu shiilay ama lagu sameeyay dalkana waa lagu sameeyaa oo waxa soo saara dahablayaasha iyada dabadana wuu nooga yimaadaa marka iibku siduu yahay iibku waxa weeye 22 kuna waa iib 18 kuna waa iib waxa hubantiyay in dalkani soo gaadheen dhibaatooyin far badan oo burbura ha noqdaan kuwo hanti ku luntay iyo kuwo dhaqaale ahaanba
haddaba sidee bay u iibsadaan dadku maadaama ay dhaqaalu iska liito dahabka ma dadka dibadaha ka yimid iibsada maye dalka iyaga joogaa iibsada waa dalhoodana xoolaha ilaahay siiyey xoolahooday soo iibsadaan geel adhi kuwaasay markaas iistaan dahabkooda marka way xidhaanoo si aad iyo aad u iibsadaan marka adigu aragtidaad ka qabto iibinta dahabku ma suuq fiican baa mise waa suuq iska liita aad buu wanaagsan yahay ma leeyahay xilliyo xilliyuu leeyahay xilliyada roobabku noo da'aan ee xooluhu noo naaxaan ayaanu iibsanaa dahabka waaye aad baad mahadsantahay magacaagana faadima hayaan dhowlaa la yidhaha faadima aad baad mahadsantahay waqtigaaga siisay adaa mudan waaye intii aan socday magaalada Hargeysa socdaalka gaaban ku marayay waxaan la kulmay sidoo kale dadka iyagu ka ganacsada sarifka oo aan su'aalo ka weydiiyay waxaad arki doontaan jawaabahoodii ay iga siiyeen su'aalihii aan markaasi weydiiyay iyagu sariflayaasha magaalada Hargeysa gaar ahaan kuwa ku dhow halka loo yaqaano suuqii hore ama jidka weyn ee magaalada u kala gooshay dhinaceeda galbeed iyo dhinaca bari waxaad iga warantaan sarifka lacaguhu heerka uu marayo iyo isbeddelka ku yimid waxaa la ogsoon yahay inuu jiro sixir barar marka idinku ma laydinku tilmaami karaa dadka sixir bararka ka dambeeya waxay dadku hada jeer ku handacoodaan in sariflayaashu ay awood u leeyihiin inay joojiyaan sixir bararka maxaad ka odhan kartaa arrinta iyada inay joojiyaan waxaan ka odhan karnaa annaku sixir bararka ma wadno dadweynaha Soomaaliland way kurtu la wada yihiin in dollarku kacay iyo in kale sidee baad ku garan kartaan in dollarku kacay marba habeen bala wada kicin karaa habeen uu dhici karaa marka maxaa kiciya caadiyan joornaalku ku yeelaa dabcan joornaalku wuxuu ka soo xigtaa sidaan ay noo warameen sariflayaasha marka idinku sarif lahaan maxaa idin odhan kartaan annagu maxaan oran karnaa waxba way waxaad moodaa sarifnimada inaad ku cusub tahay miyaad ku cusub tahay walaal adigu walaalin badan baan joognay muddo intee leeg in baalan sanadii badan joognay way aad baad mahadsantiin mahadsanidin way sidii waxaan u jeedinayaa dhawaaqooda waa wada oo meelaha lagu iibiyo dharka loo yaqaano hoodayka ama dharka iyagu ay iibsan karaan dadka maxaysatada ah ayaa waxaan waraysi la yeelan doonaa in isagu ka ganacsada alaabtan oo ah Axmed Cismaan oo isagu saan tuhumsanahay muddo dheer ku soo guda jiray hawlaha noocana Axmed waxaad nooga warantaa iibka noocana iyo waxyaabaha maaragtay dadku say u iibsadaan dadku walaal waxay u iibsadaan si fiican waxaanu ka siinaa qiimo aad u raali geliya oo ka jaban dharka marka loo eego Taiwan-ka waxaanay ka jecel yihiin dharkan oo original-ana lama keeno dharkan waa badeecada ugu wanaagsan ee dadku aad u raali geliya reer magaalada adigu shakhsiyan muddo inta leeg bad ku guda jirtay dharka noocana anu walaal waxaan inta aad uga soo shaqeeyay meheradaha noocan oo kala muddo imika ilaa 7 ilaa 8 sanadood ilaa 7 sanadood iyo bara ayaa shaqadooda haddaba dadku dhaqaale ahaan magaalada Hargeysa oo ah magaalada dalkeena ugu weyn dhaqaale ahaan waa magaalo runtii aad u qaaliya iibsigeega wax kasta marka sida la tuusay magaalooyin kala duwan oo dalkeena ayaa la dhaaway ka dharjabayn sida magaalada Europe oo kale maxaad naga oran kartaa arrinta noocaas waxaan ka oran karaa dad baa qaba sida laakiin waxaan weeyaan run ahaantii xaqiiqadu waxa weeyaan dharka yaalla magaalooyinka kale ee lacagta Soomaaliland lagu isticmaalo ayaa ka jaban lacagta loo isticmaalo faqas waad maasantahay adigu waxaan ugu dambeystii ku weydiin lahaa suuqan aad ku iibiso dharkan muddo inta leeg ayaad ku sugnayd anu markii hore waxaan ku sugnaa muddo aad u kooban waxaan ku iibin jiray suuqii hore loo odhan jiray idaacadda halkana dhawaan ayaan imi waxaanan qabaa suuqii hore wuxuu ahaa xaafad laakiin halkan waxa weeyaan bartamihii magaalada waana bilicdii magaalada waana barta wax lagu kala iibsado marka kala duwanaanshihiisu siduu yahay xagga iibka suuqii aad ka timid ugu dambeeyey iyo kan iminkaad ku soo noqotay oo markii hore aad joogi jirtay run ahaantii faraq weyn baa u dhexeeya suuqaasi waxay ahayd magaalo markii hore dadku ku badnaa iminkana uu ku yaryahay
suuqana aad waa goobtii ganacsiga loogu talagalay waana ka wanaagsan aad baad mahadsan tahay waxaan ku rajaynayaa ganacsi wanaagsan mahadsanid way cambarnaanta magaalada Hargeysa waxa kale oo ay la kowsatay in ay keento qalab cusub iyo kuwo hore u jiri jiray taasina sida ay ka mid yihiin qalabka laga sameeyay dhoobada oo ah qalabo iyagu hore loo isticmaali jiray kuwaasi oo dib loo soo saaray intii ka dambeysay deganaanshaha rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qalabadan oo ka kooban noocyo kala duwan sida idanada lagu shito waxyaabaha uunsiga iyo kuwa kale ayaan wax ka weydiiyay dadka iyagu ka ganacsada alaabada noocan oo kale waxaanay waraysigii u dhacay sida tan soo socota sameeyay ama lagu sameeyay dalkeena oo sida dhariyada idanada iyo waxyaabaha kale farshaxanka ay sameeyaan dadkeena dalka Soomaaliland ayaan wax ka weydiiyay xalimo jaamac oo iyadoo ka mas'uula alaabada aragtaan oo ku iibinaysa bartamaha magaalada Hargeysa xaligu waxa iga warataa iibka alaabadan waxay waxyaabaha dadku ay aad u jeclaystaan si waa waxyaabaha moodid in aanay soo wahayn waa afka loo jeclaystaan waxa weeye alaabadan waxay ka kooban tahay cuntada lagu karsado biyaha lagu qaboojiyo halaha wax lagu kariyo qofka faraawilka cunada waxay ka kooban tahay marka ayaa sameeyaa si fogeeyeen oo dhan yaa xakameeyay dadkeena dumarka Soomaaliland marka farshaxanka waa farshaxan dumar iska leeyahay ciid waa dhulkeena dumarku waa dumarkeena waxa weeye marka iibinta alaabada noocan ay goormay soo shaacahay